ololihii horumarinta reer miyiga waxa uu ahaa barnaamij qaran oo uu caalamku la fajacay ummadda Soomaaliyeedna tusay kalsoonida ah in ay wax qabsan karaan. ololihii horumarinta reer miyiga waxa uu ahaa olole waxbarasho oo dadka reer miyiga ah farta Soomaaliga qoristeeda iyo akhriskeedaba lagu bariyay. ololaha ayaa waxa uu dhacay intii u dhaxaysay bishii Agoosto 1974 ilaa iyo Maarso 1975. muruq la biirshay iyo murti ayaa lagu fuliyay ololihii horumarinta reer miyiga. shaqaale dawladeed, saraakiisha ciidamada qalabka sida, macallimiin iyo arday oo ay wadartoodu ahayd 28,000 qof ayaa ka qayb qaatay guud ahaan barnaamijkii hirgelinta af Soomaaliga oo socday 1972 ilaa 1975. ololihii horumarinta reer miyiga waxa uu ahaa wejigii saddexaad ee barnaamijkii hirgelinta af Soomaaliga. ololihii horumarinta af Soomaaliga ee caanka noqday waxaa ku baxay xag maaliyadeed 8 milyan oo shilin Soomaali ah. tirkoobyadii ay dawladdii kacaanka samaysay oo qoraallo iyo warbixino laga soo saaray waxaa ka mid ahaa in ugu yaraan 125,000 oo olole la qaaday ilaa heer tuulo. bulshada reer miyiga ah ee ka qayb gashay ololaha tirada shakhsi waxa ay ahayd 1,257,780 qof. ololaha waxa uu halkudhigiisu ahaa haddaad taqaan bar, haddaadan aqoon baro, marka la soo gaabshana noqonaya bar ama baro. boqolkiiba tirada dadka wax qora waxna akhriya waxa la gaarsiiyey 55%, halka markii hore ay ahayd 2 ilaa 5%. maalintii ay ardaydu baxayeen maalmo ka hor waxa ardayda dugsiyadu loogu qaybiyey sabuurado yaryar oo isku laabmaya bustayaal iyo buraashado. ardaydii dugsiyada xamar oo dhan waxaa la iskugu geeyey tarabuunka si khudbad dardaaran ah uu ugu jeediyo madaxweyne maxamed siyaad barre, kadibna ay halkaas safarkoodii ka bilaabaan ayagoo adeegsanaya baabuurta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. ardadii bacdiyo barayaashayo dadka loo bogey baadiya qabto abal mari shaqalada habeenay qodobada wasaaradihii ku howlanaa fulinta ololaha waxay waddanka oo dhan gaarsiiyeen qoraallo barnaamijyo ka baxay raadiyaha iyo aalado kale. waxaa barnaamijka horkacayay wasaaraddii hanuuninta dadweynaha oo ay wakaalado badan hoos imaan jireen sida wakaaladii filimada, tiyaatarka qaranka, raadiyo muqdisho, raadiyo hargeysa iyo wakaaladii madbacadda qaranka. aqoonsi caalami ah ayay ku heshay bulshadii Soomaaliyeed iyo ammaan howlbadnaantii dawladdii kacaanka. Jamciyadda Qaramada Midoobay markii ay qiimeysay horumarkii xagga tacliinta Soomaaliya ay ka gaartay hay'adda UNESCO waxay wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta guddoonsiisay billad dahab ah oo ay ku mutaysatay la dagaalanka jahliga. madaxweynihii hore ee Tanzania Julius Nyerere mar uu la hadlayay shacabka dalkiisa waxa uu yiri annaga waxaan hadal hayno Soomaalida ficil ahaan ayay u qabtaan. waxa uuna ula jeeday qoristii afka iyo ololihii ka dambeeyay ee lagu baahiyay farta magaalo, degmo ilaa tuulo. sidoo kale ololuhu kuma uusan koobnayn waxbarista ee waxa kaloo dheeraa barista caafimaadka iyo nadaafadda aasaasiga ah. baraha dadka wuxuu dhigayo jaali ka dhaadhici ardayga loo dhigayo dhegayso dhufiyo fiiraw yeelo ardayga loo dhigayo dhegayso dhufiyo fiiraw yeelo
dhalashadii kacaankiiyo markii dhibicu noo hooray in dhulkeenna horay loo marshaa dhaabadu ahayde dhaqaalaha tacliinta iyo dhismaha dhidibka xooggeenna dharaarba meesha yara liidataan dheelitiraynaaye farteennaa la dhigay maalintii lagu dhawaaqaayey in dhulkeenna baadiyi iyo beled dhaydu wada gaadho dhammaan inaan akhrino oon qornaa laysku dhaarsaday ee dhaqsada reer miyiyo beledkiyuu idinka dheerayn dadka wuxuu dhigayo jaali ka dhaadhici faraha dadka wuxuu dhigayo jaali ka dhaadhici ardayga loo dhigayo dhegayso dhugmiyo fiiraw yeelo ardayga loo dhigayo dhegayso dhugmiyo fiiraw yeelo u dhaqso waa farteeniye waanadaan dhigaayo iyo murtidu yaanay idin dhaafin qof walow adoon dhimin xilkaa dhabarka kuu saaran adiga oo dhegxumo diidaya iyo dhaqan shisheeyoo fog adiga oo farteennaa la dhigay dhiiri gelinaya adiga oo dhallaankaaga hadha dhexal u reebaya adoo dhaadan oo tawraddana dhab ugu faanaya adoo dhaqaya beertiiyo bartaba reerkana u dhaamin dhaqsada reer miyow beledkiyuu idinka dheerayn faraha dadka wuxuu dhigayo jaali ka dhaadhici faraha dadka wuxuu dhigayo jaali ka dhaadhici ardayga loo dhigayo dhegayso dhugmiyo fiiraw yeelo ardayga loo dhigayo dhegayso dhugmiyo fiiraw yeelo u dhaqso waa farteeniye dhadhanso waa macaane u dhaqso waa farteeniye dhadhanso waa macaane dhallintii magaalada fadhiday dhodayartii joogtay weliba garasho dheeryeel ahayd kana dhaqaaqaysay kuwii dhigayey kuwii dhiganayay iyo kuwii dhammaystoo dhan dhakhtarrada dadka iyo xoolahaba dhaya xanuunkooda dhulka iyo kuwaa beerahaba dhabu dawaynaya dharka iyo dhuunigaa baxahaya iyo dheemantii lacagta baabuurta dhalandhoolka ah ee dhagaxa jiidhaysa intaasoo dhan waxaa loo diray dhamacda loo jiidhay dhayal ma aha idinkaa dartiin loo dhibgelayaaye dhaqsada reer miyow beledkiyuu idinka dheerayn faraha dadka wuxuu dhigayo jaali ka dhaadhici faraha dadka wuxuu dhigayo jaali ka dhaadhici ardayga loo dhigayo dhegayso dhugmiyo fiiraw yeelo ardayga loo dhigayo dhegayso dhugmiyo fiiraw yeelo jiilkii hore khaasatan wixii ka horreeyey qoristii af soomaaliga waxay wax ku baranayeen afafka qalaad sida carabiga ingiliishka iyo talyaaniga ardaydii ku baratay af carabiga waxaa la ohan jiray hebel waa tiiba carabi kan talyaaniga wax ku bartana waxaa la ohan jiray tiiba talyaani afafka kalena sidaas oo kale ayaa la ohan jiray laakiin qorista af soomaaliga kadib waxa ugu yaraan af soomaaliga lagu baran jiray ilaa heer dugsi sare hirgelintii af soomaaliga sanadii 1973 waxay dowladdii kacaanka bilowday in ay daabacdo bugaagtii iyo manaahijtii waxbarashada dugsiga hoose dhexe ilaa iyo sare kacaankii waxa uu sidoo kale kor u qaaday doorku ay haweenku ku leeyihiin bulshada ayagoo kaalin lixaad leh ka qaatay hogaaminta bulsho weynta siiba dhalinyarada gabadha waxbaratay waxa ay muhiim u tahay nolosha aasaasiga ah maadaama haweenka soomaaliyeed ay udubdhexaad u yihiin qoysaska haddii aan la dhiirigelinna carruurta berito si dhaqso ah uma koriyaan caqli ahaan iyo jir ahaanba waddan kasta oo aan lahayn jaamacad qaran waxa uu wajahayaa dhibaato xagga horumarka ah dowladdii kacaanka waxa ay durbadiiba aasaastay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed oo u xil saarnayd diyaarinta ardayda kuliyado kala duwan fasallo waxbarasho oo qalabkooda u dhan yahay
dejinta manaahijyo xilliyeysan kuna salaysan duruus taya leh xulashada macallimiinta iyo diyaarinta jiifka cuntada iyo daawada ardayda. waxay ii tahay farax weyn in maanta la furayo saldhigga weyn xarunta waxbarashada heerka jaamacadeed ee dhallinyarada Soomaaliyeed. waa jireen kuwa hore aan u dhisnay hab ka fudud ama ka yaryar inta hadda kan uu yahay, laakiin waxaan aaminsanahay tan maanta aan furaynaa jaamacadda tan dhismadeeda oo ka koobanta nooc kasta oo waxbarasho intooda badan inay ahaan doonto mid dhalinta Soomaaliya ay kaga baxdo jahaalada qodada dheer anoo aaminsanay si badsan doonaanin waxyaalaha ka maqan ama xubnaha ka maqnaan karaba oo aan leeyahay weli innaga nafteennu haddaynu abuuranno mooyi inaynu ku shaqaysan lahayn iyo in kaleeto mar haddii waxyaalo badan maqan yihiin. waxay ii tahay farax weyn. waxaan markaa mahad u celinayaa qolooyinkii nagala qayb galay riyadii goor 8 sano laga joogo aan bilownay in jaamacad aan leenahay oo wax walba leh dhismaheedii aanu gallo oo ah suuqa reer Yurub, isla markaasna qolooyinka muxuu ahaa Sacuudi Carabiya iyada nafteedu ay qayb nagala qaadatay. waxaan aad iyo aad ugu jeedinayaa ammaan iyo bogaadin mudnaaneed madaxdii hogaaminaysay dhismaha kan, khaas ahaan injineer Axmed Barre iyo injineerada kaleeto la shaqaynayay iyo wakaaladda madaxdii isbedbedelaysay oo badnayd oo iyaguna qayb libaax ka qaateen dhismaha kan. jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee uu kacaanku aasaasay waxa ay ka koobnayd 15 kuliyadood oo kala ahaa kuliyadda engineering, kuliyadda geologiga, kuliyadda kiimikada, kuliyadda xanaanada xoolaha, kuliyadda sharciga, kuliyadda dhaqaalaha, kuliyadda luqadaha, kuliyadda basic science-ka sida biology, physics, chemistry iyo xisaabta, kuliyadda daawada, kuliyadda macallimiinta la foole, kuliyadda beeraha, kuliyadda culuumta siyaasadda, kuliyadda saxaafadda, kuliyadda farsamada polytechnico iyo kuliyadda daraasaadul islaam. ardaydii ka qalin jabisay kuliyadahaas waxay ilaa maanta kaalin firfircoon oo lixaad kaga jiraan horumarinta dalka, waana aqoon-yahanka ugu tirada badan ee gacanta ku haya howlaha la xiriira caafimaadka dadka iyo xoolaha, beeraha, garsoorka, waxbarashada, qorshaynta, dhaqaalaha, dhismaha guryaha iyo isgaarsiinta.